13 bishan Juun ayay ahayd markii Foosiye Axmed Cali oo ah gabar Soomaaliyeed ay naga codsatay inaan booqanno oo aan baahino muuqaalka iyo xaaladda murugaysan ee qoyska Xabiibo Axmed Xasan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala saga ay awoodiisa ku ahaatay idankiisa qofna dhibka iyo naxariistu midna lama dhalanin mid walba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu fiirinayaa samirkiisa iyo inta ay leeg tahay dulqaadkiisu Ilaahay baana ugu tala galay bay ila tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyagana inuu ka dulqaado annagana inuu ku soo keenin baan Ilaahay khaliqul jibaarka ka baryeynaa reerkan saakiinta baadiya laga soo xareeyay waa wiil iyo gabar walaala oo xanuunsan waxaana dhashay maamada ag taagan waxay iska duwayaan ma leh waxay cabsan karaan ma leh waxay karsan karaan ma leh ma qubaysan karaan wax ma cuni karaan wax ay caawa ku dhaxaan ma haystaan hanti ma haystaan qolka meeshaas reer islaameed looga bariyay oo ku xareysan yihiin caawa hadii dariska u soo galana way hooyan karaan hadii ay u soo galin karin ma hooyan karaan waxaan ka codsanaynaa ummadda islaamka inay waxay awoodaan taraan wiilasha wariyayaasha anaga u qayla dhaaminay anaga u yeernay annagaana ku barinay inay kaamaradaas nagu caawiyaan oo ay reerkaas masaakiinta ku caawiyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofkii qof islaam ah oo dhiban caawiya isaga ayaa caawiya iimaankana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyaga ha u sugo dibtana Allah ka dulqaado. Maantay oo ay taariikhdu ahayd 15 Juun ayay awoodda Alle ku sugnaatay inaan booqanno qoyska hooyo Xabiibo Axmed Xasan inagoo ujeedkayaga uu yahay u dhawaanshaha Allaha weyn ee iskale qadarta nolosha iyo geerida xanuunka iyo caafimaadka dharagta iyo gaajada iyo wixii la mid ah. Bismillah maamo baladiguna waxaad xog naga siisaa labadan caruurta ay xanuunsan waqtiga xanuunkoodii uu bilowday iyo heerkaad la soo madhay iyo haatan xaaladoodu sidee tahay wax idin kaga muuqdana waad aragtaan waxaan la soo marrana Allaha weyn baa og oo waaxidka waan aad aragtaan waxa dushooda ka muuqda baadiyaan la joogay tan iyo dhalashadoodina way jiranaayeen intaasna inta aan la soo maray Ilaahay baa ka warqabay aadana kama sheekayn karo aniga hadda la soo maray baan ka hadli karin oo ay tahay hadda Ilaahay weynaha baa og laakiin waa ogsoontiin qof jiran qof haya inuu qalbigiisu iska fudud yahay adiga caruurta marka halkaan hooyadii abiya hooy halkaas aan kirana nolol kaga rabaa walaalayaal oo aan hadda wali 3 bilood bixin maxaad ku seexataan marka meeshan waa meel faaruq wax yaala ma jiraan waxaan ku seexanaa walaalayaal ciida Ilaahay baan waxaan dhiganaa salix xisiiga baan dhiganaa maadaama gabadhan muxsanada ay aragtay hawshiina inagu in la soo xiriiday haddana muuqaalkiina armeynaan baahino qofkii islaam ah oo rabo inuu wax la baxo oo ku caawiyo xagee wax kugu soo hagaajin karaa oo telefoon ma leedahay telefonkayga igu soo hagaajinaya aniga telefoon leh sahal waa intee lambarkaaga lambarkaygu waxa weeye 46 qoyska hooyo Xabiibo ma haystaan caafimaad oo waxay la nooshahay caruur dhimir kala ma haystaan hooy oo waxay ku nool yihiin goob aan ku habboonayn nolosha aadanaha marka laga reebo gurmadka aan badnayn ee dariska kuna kooban baad iyo biyo ma haysato hooyo Xabiibo wax un ay ku maarayso noloshooda.